Assalaamu calaykum asxaabta channelkay kusoo dhawaada waanii salaame dhammaan meel kasta adduunka joogtiin soo dhawaada insha allah maanta waxaa rabaa niila sheergareyo sidaan u suubiyey this delicious Greek gyro ama waxaa loo yaqaanaa also gyro magacyo saddexdaas magaca loo kala yaqaanaa I don't know waxay ku wacdiin but gyro waa la dhahaa marka insha allah sidaan u suubiyey niila qaybsanaa hilibka anaa suubiyey iyo fresh waaye mid diyaar ah ma aha also ceeshkana waa suubiye marka insha allah fiirsada ilaa dhammaad waa ka heli doontiin idinkana barooweeya waa cunto aad u macaan insha allah oo qado iyo cashab loo suubsan karo marka insha allah waxaan ku dardhana niila qaybsanaa step by step marka haddaa ka hesheen ilaa dhammaad fiirsada so intaan spice saxanka ii saaranaa ku daray waa kana asoo caag ku jirna sidaa si fiican u aragtiin magacyada paprika oregano basil waxaa ku daray kale onion garlic iyo steak seasoning nooca rabta isticmaal kartaa steak seasoning oo ku yaalo noocana isticmaaloyaa waxaa ku daroyaa kale kaamuun xabaj dhudhubka waa oo shiidan iyo thyme intaas waxaa saxankan ii saaran insha allah oo arkoosiin iyo cusbo also halkaas nus qaando waaye 1 pound oo ground lamb iyo 1 pound oo beef aa isku daray oo shiidan hilib shiidka waaye laakiin lamb iyo beef waa kaas spicekii oo dhan aan ku daray waa soo qasay isku kuli meeshaan aan rabaa inaan ku shubo kan rootiga lagu suubiyo oo yaryariska kaasaa ku wada shubay haddaa rabti hilibka waa badsan kartaa ilaa 4 pound waa buuxinaa kan marka hadda 2 pound waa insha allah ovenkaa gelinaa ilaa 45 minute oo ku jirnaana insha allah inta oo oven ku jiro waxaa suubsanaa ceeshkii lagu cuni lahay meeshaan 1 cup waxaa ku shubay biyo oo qandac markaas waxaa ku daroyaa 1 tablespoon oo levito ama fixiso markaas waxaa ku daroyaa 1 qaando also oo wax sokor saddexdaasaa isku qasaa a few minutes camal la sugaa ilaa oo wax kasoo noqdo waa kaas ishaas yar marka soo yeeshto xumbada diyaar waaye markaasaa cusbo ku daroyaa also 1 qaando iyo 1 qaado oo olive oil intaasaa isku qasooyaa markaas waxaa ku daraa 2 koob bur waxyar lee qasooyaa ilaa 8 xabo 7 xabo ama meelahaasa kasoo baxaa haddaa yaryariis u fidisid laakiin ani 7 xabo camal lee u baahanahay qiyaastiisa haddaa rabtid inaa oo wax badan rabtid camal ceeshka waa badsanee koobka 2 ka dhigee waa kaas saana iskugu qasooya inuu isku imaadaa rabaa markaas gacantaa si fiican ugu qasaa saanoo noqday waa sugaa ilaa nus saac camal meelahaas waa kaas yaa kana ku dabooloyaa marka waa kaas nus saac kadib waa kan sidaanu kusoo baxay waa fidinaa markaas insha allah waa dubaa midka koowaad i tusaa insha allah sida kusoo baxaayo waa kaas saana la rabaa inuu noqdo waa kan diyaar waa ceeshkii hilibka weli waa ku jiraa maxaa la dhahaa sooskii lagu cun lahaa had diyaarinaa waxaa ku daroyaa Greek yogurt sour cream qajaar liimo dhanaan jab oregano iyo onion powder iyo 2 xabo toon cusbo iyo filfilna xagga way saarantahay intaasaa saaran waa kan qajaarka waa soo jarjaray intaa ku wada shubaa waa soo shiidaa intaas insha allah sooskan muhiimo waaye
because gyroga wax macaan ka dhigooyo kan waaye ama gyroga kana macaan ka dhigooyo insha allah. waa kaas 3 qaanto oo yogurt ku daraa, qajaarkii oo soo shiida waaye, waa kaas basbaas cagaar camal oo soo ekaana 3 qaando yogurt iyo 2 qaado sour cream. markaas waxaa ku daraa kale liin dhanaan aa ku miirooyaa half, waa kaas si fiican ugu miirooyaa ilaa oo juice-kaas dhanaanka kasoo baxo. markaas waxaa ku daraa little bit pepper iyo cusbo yar. powderka onionka ku darooyaa, basal waaye oo shiid oo budaha iyo wax yar oregano, just flavor loo siinaa iyo wax yar caraf oo fresh oo waxaa soo jarjaray parsley. waa kaas si fiican isku qasaa, markaas saani kusoo baxay. hadda waa diyaar sooskii oo kor loogu cuni lahay. meeshaan 45 minutes oo ku jira, waa kan diyaar waay gyroga. markaas faadka dhan iyo biyaha meesha ku heray waa laga bixinaa, la isticmaalayo just hilibka laga soo bixiyey. waa kaas markaas 10 slices loo gooyaa khafiif. waa kaas waa jarjaroyaa si oo waxa u soo jarjaroyaa kale homemade waaye, kuwa maqaayada camal ma aha marka, laakiin caraftiisa caadi ma aha maasha allah. kuwa maqaayada kasii fiican yahay cunitaankiisa, kan aada ugu heli doonta insha allah. broweya 1 pound oo beef iyo waxaa isku daray iyo 1 pound oo lamb. waa kaas waa jarjaroyaa 10 slices. waa kaas asxaabey waa jarjaray maasha allah, sidaan ku soo baxay. waxyar waxaa rabaa inaa oo dabka ku gaduudiyo. waa kaas waa optional, laakiin hadda ka hor youtube waqtigaas ma qabin aan suubsaday maasha allah. beeloo noqday saa markii suubiyey oo taawada waxyar ku dudubay. marka hadda niyadoo naga soo galay gyro. waa kaas asxaabey dabka waxyar tusooyaa, waxyar gaduudinoyaa. waa kaas sooskia inta saaran wixii lagu shub lahay dhan vegetable-ka. waa kaas ceeshkii hilibka waa kan the first one sidaan u suubinooni tusaa. first hilibkaa saarsaara waa kaas waxyar ansalaato qofkii jecla saarto, some people ansalaato ma saartaan. bayaa ansalaatada ku fiican yahay. yaanyaa saaroyaa soo jarjaray. waxaa kala saaraa basasha gaduudka, and of course the sauce. laakiin sooskan la-aantiisa gyro ma bacunin marka waxyar cheese-kana waa saaro.